munaasabaddan lagu daahfuriyay barnaamijka barashada dastuurka qaranka oo ay iska kaashadeen diyaarintiisa wasaaradaha xiriirka golayaasha iyo warfaafinta oo lagu daahfuray caasimadda Hargeysa waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirada wasaaradaha xiriirka golayaasha horumarinta maaliyadda waxbarashada agaasimayaal xildhibaano cuqaal waxgarad agaasimaha TV-ga qaranka ahna kusimaha agaasimaha guud marti sharaf iyo mudan lagu casuumay ugu horeyn ujeedada munaasabadaasi waxa ka waramay agaasimihii hore ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Xuseen Dhabeeye ujeedada ugu weyn ee runtii kala hayn waxa weeye in halkan lagu soo bandhigo barnaamij ballaaran oo ku saabsan barashada dastuurka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo qaybo kala duwan runtii noqon doona waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta iyo dhaqanka oo hawsha qayb weyn runtii ka ah baahina doonta TV-ga qaranka idaacadda iyo jaraa'idka la yiraahdo dawal waxa kale oo iyagana u mahad celinayaa teamkii nagala shaqeynayay ee sida fiican ee hagar la'aanta noola shaqeeyay Cabdirasaaq Danaakil Ahmed Tubaac iyo rag kale iyaguna la shaqeynayay baan iyagana aad iyo aad ugu mahad celinayaa waxaan isagana si gaar ah ugu mahad celinayaa maareeyaha cusub ee TV-ga qaranka ahna kusimaha agaasimaha guud ee Maxamed Xasan Cali Waji oo intii uu xilka hayay talooyin badan lagu soo kordhiyay agaasimaha TV-ga qaranka ahna afayeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Xasan Cali Waji oo madashaasi ka hadlay ayaa ka waramay doorka ay wasaaradda warfaafintu ka qaadatay soo saarista barnaamijkan waxaan ka qayb qaadanay badanahay wasaaradda warfaafinta laba shaqo leedahay labadaba waan isugu daray oo ku kaalmeeyay wasaaradda mid waa soo saaridii barnaamijka oo hadda barnaamijkan arkayseen maqal iyo muuqaal waxa diyaariyay wasaaradda warfaafinta qaybaheeda kala duwan baa diyaariyay oo la shaqeynaya wasaaradooda iyo dastuurka haddana waxaan u diyaarinahay ilaa ay ka dargaan dadkeenu in telefishinka idaacadda iyo wargeyskaba aan ka sii deyno wasiirada wasaaradaha xiriirka golayaasha horumarinta maaliyadda waxbarashada xiriirlaaliyaha guud ee qaranka madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaaliland Cabdiraxmaan oo Cali Faarax mas'uuliin ka tirsan xisbiyada qaranka marti sharaf iyo mudan lagu casuumay oo munaasabada bandhiga barnaamijkan ka hadlay ayaa ka waramay qiimaha uu u yeelan doono bulshada Soomaaliland iyo maraaxilkii kala duwan ee uu soo maray dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan sameynay kor u qaadida aqoonta dastuurka ardayda barnaamijka shaqo qaran oo dhalinyarada dareere weyne ku xareysanna aanu program iyo qorshe ugu talagalay ee dastuurka ku bartaan iyo hablaha jaamacadaha Soomaaliland ku jira ee shaqo qaran ee dhammaanba jaamacadaha ay ku jiraan iyagana waxaan u qorsheynay inay halkooda ku qaataan sidoo kale waxaan sameynay barnaamij kanaynu maanta runtii aynu daahfurayno oo wacyigelin ah oo aan ku talagalay inaan raadiyoga iyo waxa weeyaan iyo TV-yada iyo jaraa'idka intaba aanu isticmaalo programkaasina oo runtii ka soo bixi doono bulshada Soomaaliland runtii aanu rajaynayno inay si wacan uga dhigi doonto barashada dastuurka maadaama dastuurka isla qaadanay inuu yahay sharciga ugu sareeya qarankan leeyahay kaalinta aanu ku leedahay in dastuurkan aanu fidino aanu ardayda baro manhajka aanu ku daro oo ka dhigno qayb weyn oo kamid ah oo caruurteenu ay ku bartaan dhammaan heerarka waxbarashada ee kala sareeya markaasi annagu wasaaradda waxbarasho ahaan waxaanu ballan qaadaynaa inaanu manhajka ku daro waxbarashada waddankeena dastuurka ayaa qeexaya xaqa uu leeyahay muwaadinku iyo waajibaadka lagu leeyahay qofka muwaadinka wuxuu kaloo dastuurka u xadidayaa awoodda dowladda wuxuu xad buu sameeyaa aanay ka gudbi karin dadweynuhu iyaga ilaashanaya gobonimadooda iyaga ilaashanaya sovereignty-gooda iyo madaxbannaanidooda buu siinaya marka dastuurkaasi aad buu lafdhabar ugu yahay waxa weeye inay ilaashana waa muhiim wasaaraddan cusub ee dowladdan cusub ay u samaysay mas-uulna uga dhigtay nin xilkasa oo runtii intii uu joogay wax badan hawlo badan qabtay waan ku hambalyeynaya waxaanan u ducaynayaa ilaahay hawsha aad bilowdeen mid loo baahan yahay weeyaane ilaahay ha idin hawl yareeyo waan ku bogaadinayaa wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka barnaamij
barnaamijkan ama mashruucan barashada dastuurka waa ku bogaadinaya oo arrin loo baahnaa waan soo dhaweynaynaa wasiirku wax wanaagsan buu keenay inaad nagu dhaqdo dastuurka dalka diyaar baanu u nahay in manhajka loogu daro waxbarashada aad iyo aad bay u habboon tahay haddii aanu nahay xusbiga wadani annagu waanu taageersannahay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo gabagabadii daahfurka munaasabadda barnaamijkaasi soo xidhay ayaa ka warramay qiimaha ay leedahay barashada iyo ku dhaqanka dastuurka waxaan u bogaadiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay hirgelinta barashada iyo wacyigelinta dastuurka ee daahfurtay wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyadoo kaashanaysa wasaaradda warfaafinta waxaa maanta runtii sharaf weyn ah inaan ka soo qayb galo barnaamijka ama daahfurka barashada dastuurka iyo wacyigelinta dastuurka Somaliland oo ay soo diyaarisay wasaaradda u xil saaran ee wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka oo sida la sheegay markii horeysay la sameeyay si loo qabyo tiro ama ummadda looga dhargiyo ama loo gaarsiiyo wasaaradda runtii aad iyo aad baan ugu hambaleynayaa inay maartay markii labaad ay samayso kulankan oo kale ah oo dadkii lagu wacyigelinayo ama la xasuusinayo qiimaha dastuurku leeyahay waxaan kusoo gabagabeynayaa waxaan leeyahay dastuurku waa hanti keliya koowaad ee qaranka Somaliland haysto maanta waa waxa maanta hantida koowaad ugu mudan ee qaranka Somaliland maanta haysto waa waxaan ku maartay ku nabadnahay ku degannahay waana tahay inuu baahannahay dhammaanteen ilaalino barnaamijkan barashada dastuurka qaranka ee lagu daahfuray caasimadda Hargeysa ayaa noqon doona markii ugu horeysay ee si rasmi ah dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland looga sameeyo barnaamijyo ka bixi doona warbaahinta dawladda. Xamse Ciidid Maxamed, telefishinka qaranka Somaliland, caasimadda Hargeysa.